wasiirka arrimaha gudaha iyo federalismka Miss Sana Omar ku-xigeenka hay'adda UNHCR dhammaan shaqaalaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan mahad iska leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka xigta waxaan mahad celinayaa wasiirka waxaan mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha waxaan mahad celinayaa madaxweynaha oo eegmaday hawshan qaran ee baaxadda weyn hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha waxa ay qabataa sida ay ku muuqato magaceeda waxaan qayb ka nahay wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiir fiqi oo hogaamiye ka yahay wasiirka yahay waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa wasaaradda iyo wasaaradaha ay howlaha nala xiriira sidoo kale waxaan la shaqeyn doonaa hay'adaha iyo international community-ga waxaa loo baahan yahay in dadka iyaga aan anagu u gurmano waxaan rajeynayaa inaan si dhow ula shaqeyn doono qof kasta local hadday noqoto iyo international hadday noqoto laakiin hoggaanka yahay wasiirkayga iyo dowladdeena federaalka inaan dadkeena ka qaadno dhulka aan ka qaadno dhibka ay ku jiraan aan ka qaadno qof walba oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay qof kasta oo bini aadan ah inuu helo basic nolosha inuu helo inuu meel uu seexdo helo shelter helo uu ku hoydo wuxuu u baahan yahay wax cuno inuu helo wuxuu u baahan yahay wax xirta inuu helo caruurtayada sidaan anagu kuwayga u rabnaa waxay u baahan yihiin ilmahooda inay wax bartaan waxay u baahan yihiin inta qof bini aadan u baahan yahay diin meel lagu bartay u baahan yihiin waxaan ka shaqeyn doonaa sharciga lagu dejin doono inay xaq u bini aadanku helo soo waxaan rajeynaynaa inaan u midowno dadka iyaga baahida iyo dhibka ku jira oo tugsiga saa ugu wada saar lahayn waxaan dib ugu noqonayaa inaan u mahad celiyo gudoomiyihii hore hay'adda Aamina oo shaqo xoog leh oo baaxad leh halkaan ka qabatay waxa cadeynaysa dokumentiga ay nagu wareejisay Aamina mar walba waxa tahay asset hay'addan u tahay mar walba waan ku soo raadin doonaa aqoontaada iyo kartidaada inaad nagu caawin doontid waa mahadsantihiin dhammaantiin haddaan la hadlo shaqaalaha hay'adda iyo dhammaan maamulka hay'adda waxaan leeyahay waan mahadsantihiin hawsha wanaagsan aad qabateen laba shaqadiina saddex laaba insha Allah mid iyo teamba waan wada fariisan doonaa si aan u sii dardargelin lahayn horumarka iyo waxtarka dadka iyaga ee dhibanaha ah waa mahadsantihiin assalaamu calaykum